magaalada Berbera ayaa waxay juqraafiyan ay dhacdaa dhinaca waqooyi ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama bacidifka dhinaca koonfureed ee marinka badda cas. magaalada Berbera ayaa waxa ay tahay magaalo aad u facweyn oo leh taariikh aad u fog isla markaasina ka qayb qaadatay ilbaxnimadii iyo xadaaradihii kala duwan ee adduunka. waxay xiriir ganacsi la lahayd wadamada Carabta iyo Hindiya, waxa iman jiray doonyo iyo maraakiibinta badan ka yimaada wadamada Carabta iyo Hindiya iyo waliba dalka Japan, kuwaasi oo keenay jiray dharka, raashinka iyo waxyaabo lamida. iyadoo xilligaasi sidoo oo kalena dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dibadda ay dhoofin jireen xoolaha nool, haraga, malmalka iyo waxyaabaha kale uduga. magaalada Berbera ayaa sidoo kale waxa ku noolaan jiray dadyo kala duwan oo isugu jira Carab, Hindi, Yuhuud, Suudaan oo inta badan la socday xadaaradahaas iyo dawladahaasi kala duwan ee marba mar ka dambaysa ay gacanta u galeysay magaalada Berbera. haddaba aan jaleecno barta ugu muhiimsan imaamka caalamka Berberi uga dhex muuqato waa dekada Berbera. dekadii ugu horeysay waxaa qoori badeedka saaxil ka dhisay dawladii Cusmaaniyiinta dabayaaqadii qarnigii 17aad. dawladii Ingiriiska ayaa iyaduna xilligii ay Soomaaliland qabsatay ama ay xukumaysay waxa ay dhisay dekada labaad sanadihii 1967 ilaa 68 ayaa midoogii Soviet dhisay dekadii saddexaad oo dhammayd 350 mitir. sidoo kalena sanadihii 1982 ilaa 84 ayaa dawladii Mareykanku ku kordhisay dekada weyn ee hore oo dhisay Ruushku 300 oo mitir oo dambe. dekada Berberi xilligan waa 650 mitir. dekada Berberi waa xudun ganacsi oo wax laga soo dejiyo waxna laga dhoofiyo, waana dhunta ugu dhow dhinaca xoolo dhoofinta. dabcan muddadii Jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay dekada Berberi waxay ahayd isha dhaqaalaha ugu weyn. muddadii 27 sano ahayd marxalado kala duwan ayay soo martay, laakiin waxaynu ka xusi karnaa xilligii maalgelinta caalamiga ah ee kala saxeedeen xukuumadii Axmed Maxamed Silaayo iyo shirkadii DP World xilligaasi oo ahayd dabayaaqadii sanadkii 2016. waqtigaasi waxa uu ahaa mid xasaasiya, waxaana dhacay heshiis caalami ah oo noqonaya markii ugu horeysay ee dekada Berberi ee hesho maalgelin caalami ah intii Soomaaliland ay gacanta ku haysay. markii heshiiskaasi dhacayna waxa isla markiiba buuq badan ka dhexdhashay xukuumadii xilligaasi jirtay iyo golayaashii sharci dejinta. waxa taa ayna barbar socotay tii ka dhex taagneyd shaqaalihii kala duwanaa ee dekada ka shaqaynayay iyo shirkadda DP World, iyadoo sababta ugu weynaa xilligaasi loo aaneynayay wacyigelin la'aan. laakiin markii la soo magacaabay maareeyaha xilligan gacanta ku haya dekada weyn ee magaalada Berbera waxaa suulay murankaasi, waxaana dhacday inay si weyn isku fahmeen shaqaalihii kala duwanaa iyo shirkadii DP World sida ay sheegeen shaqaalaha qaarkood oo aan waraysiyo la yeelanay. maareeye Siciid waa nin oo howlan shaqada una soo jeeda shaqo badanna ka qabtay xagga dhexdhexaadinta shaqaalaha DP World iyo shirkaddan DP World oo waxa weeyaan mar walba u heelan oo u taagan sidii uu dhexgeli lahaa ama u heshiisiin lahaa haddii ay caqabado yimaadaan. markaa maareeye Siciid horta runtii wax fara badan buu qabtay intii uu halkan joogay. dee horta waanu ku mahadsan yahay, waana shaqada uu xilka u hayay, allah ku asturo. wuxuu dhacay waqtigii dekada la wareejiyay Axmed Yuusuf, waqtigiisa cidna wareejisay ma jirin. buuqa waxa keenayay ummad dhan oo shaqaynaysa oo ku shaqaynaysay dekada Soomaaliland leedahay oo shirkadii la wareegtaan cidi ku wareejin buuq uu imanaya. waqtigii maareeyaha cusub uu yimid isfahanku aad buu hagaagay, waanaan wada shaqaynaa imika si fiicanna waan wada shaqaynaa. waxaan dekada kale ku soo kornay mushkiladda ugu weyn dekada Berbera waxay dhismihii oo imika cimrigiisu dhamaaday iyo dekadii aan taag lahayn. imika aniga iyo maamulkii Siciid ka horeeyay 5 sannadood waxaan ka shaqaynaynay sidii aan taag keeni lahayn. maana u yaraysanay wax walba nasiib baa u leeyahay. World Bank aan galay, lacag baan u ururinay, waxa waan sugaynay, waxa uu naas xawaa. waxa weeye Ilaahay Siciid meel buu ku qorayo dadaalna uu muujiyay iyo dhiiranaan. nasiib ku yeeshay maanta in taagii aan haysin mid laabkii 2 jeer ka xoog weyn inuu muddo ku keeno. هذه أدنى متهدينية وأنا كفر حمانته هي المتهد بين كيرين أي مكان. وحكوا لهم بين الدود اسمه ودل بسوتشو وسفرني معي وكتريسونا وشري
inuu baylowdooda ku jiro doraadna wax badda la dhigay booydihii maraakiibtu haddaanay booydaha badda dhinacyada ka yaala haddaanay habeenkii soo iibsanin way caagayaan hadday caadiyaanna dee iminku maraakiibta way naga xidhaysaa wuu ku mahadsan yahay Siciid madaxweynaha siiyey kalsoonida ee diray ee haddii beeligeedii ku aamineen wuu ku mahadsan yahay waxa weeye aniga si gaar ii taabanaysa oo waxaan aqaano wax qolada barto weeye markaa qofkii musbaar meel wanaagsan kaga taaga waanu mahadnaqaya waxa kaloo Siciid maanta uu nasiib u yeeshay ilaa 1950 sanadood dekedu ay dhisnayd sandaqad ay leedahay meel kama taagna daarta quruxda badan ee maanta aynu ku jirno madaxweyne Muuse Cabdi iyo waxa furay Siciid iyana waa nasiib labaad waxa weeye dekedii waa la ballaarinaya shaqaalii maxaa laga helay baa maxaa faa'iido laga helay faa'iido wax laga helay dekedii oo cimrigeedii gaalidan ballaarinayno shaqaaliheenii oo boqolkii 1000 jeer intay qaalinteen ka badan maanta qaato dawladda dekedu waxay warshada ku leedahay Somaliland shaqaalaanta la dagaalanta alxamdulillah rabbil caalamiin maanta ninkii shaqaalaha ay 300 jiray 1200 qaato waa faa'iido muddooyinkii u dambeeyey waxaa iska bedelay tallaabo aanay Somaliland 27 sano aanay tallaabsan ayay xukuumaddan doorkan kulmiye uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Bixi ay tallaabsatay oo ay ka mid tahay taag cusub oo aan 27 sano dalka aan oolin inuu keenay Maariya Siciid oo ka mid ah xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Bixi marka waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinaynaa horumarka iyo tadawarka uu sameeyay maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi oo ku soo kordhiyay dekeda dhismo cusub taag bood navigation board oo yahay nin run ahaantii cadaalad ahaan dekeda Berbera iyo DB World khilaafaadka ka yimaada sidii loogu talagalay waxa liya mid kale halkan u sheegaya waxa weeye madaxweynaha aan u gudbinayaa inuu keenay dekeda Berbera nin aqoonteedii leh oo kartideedii leh run ahaantiina deeqay ummadda reer Berbera iyo shaqaalaha dhammaan dekeda Berbera jooga waxaa la soo kordhiyey taag dhismaha cusub maxaa dhahdaayay halkan iga dambeeya kala dambayn navigation lights oo xagga badda aanu dhignay la dhigay iyo qaar fara badan soo socda intaaba oo hore u jiri jirnay ayaa imika soo kordhay marka dawladdan uu hogaaminayo Muuse Bixi Cabdi iyo maareeyaha dekeda Berbera wax badan ba inta lagu soo kordhay 50 sanadood oo Somaliland waxba ay qabsan bay maanta ay qabsatay dekeda Berbera oo garowdeenka xukuumadda ku yeey Muuse Bixi Cabdi iyo maareeyaha guud ee dekedaha Siciid oo aad u soo kordhiyay wax qabad fiican oo bulshada reer Berbera ay ku hirteen waxa kamid ah dhismahan maanta ay taaganahay buildingkan quruxda badan leh ee aadka loo farshaxanka lagu fareereystay waxa kamid ah taaga maraakiibta oo in badan aynu lahayn taag kaliya oo goobay maanta laakiisa ah taag casriya oo ah modelkiisu 2008 sanadkii la soo dhaafay la sameeyay waxa kamid ah halka noobiyada loo yaqaan maraakiibta ku soo hirtaan oo la casriyay oo lagu sameeyay dub habeen waxa kamid ah boys waxa la yiraahdo maraakiibta tangarada shidaalku ku soo xidhaan oo isla la dhigay intii uu Siciid Maariya Siciid joogay waxa weeye maanta dekedu waxay maraysaa horumar cabashada ganacsatada oo aad u soo noqnoqon jirtay oo maanta la dhameeyay oo wax cabasho aanu jirin oo uu abaal uu leeyahay mudnaantaas u Maariya Siciid oo had iyo jeer xafiiskiisu u furan yahay cabashada dadweynaha iyo ganacsatada oo aad moodaa in la isla jaan qaaday maanta ganacsatada iyo xukuumadda iyo maamulka dekeda oo la dhameeyay oo taas wax walba taanba saacad gudaheedu ku dhameeyo Siciid iyo waxa kamid ah tii had iyo jeer soo noqon jirtay ee ahayd shaqaalaha dekeda muruqmaalka safadooranka oo uu Maariya Siciid aad u dhameeyay oo maanta wax cabasho aan taagnin oo shaqaalaha ama muruqmaal ha noqoto ama safadooranka la isla jaan qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu ku mahadsan yahay waana ugu mahadnaqaynaa asaga iyo maareeyaha dekeda uu soo magacaabay Siciid Maariya Siciid oo sida runtaa inta uu joogay maareeyaha dekeda ka ahaa wax badan
ka qabtay oo isbeddel fara badan oo weyn meesha uu ka soo baxay hadday noqoto dhinacii shaqaalaha ee DP World xitaa u shaqaynayay oo isfahan weyn uu ka sameeyey shaqaalahii DP World iyo shaqaalihii Soomaalida ahaa. horta marka ugu horeysa isbeddelku marka uu cusub yahay aad iyo aad baa pressure ku badnaayeen oo waa weydeen mudaharaadaad jiray shaqo joojinaa jirtay cabasho badan baa jirtay dadku marka ka dambeysay shaqaalaha iyo DP World way isla qabsanayeen xuquuqdoodana waa la sugaayay isbeddelka dhacay maareeyaha cusub ku dhiso dardar cusub ayaa la geliyay markaasi shaqadii run ahaantii dadkii oo yar bislaaday oo DP World iyo shaqaalihii isfahmay iyo maamulkii dekedda oo isbeddelka ku yimid laftiisuba qayb uu ka qaatay oo noqotay markaasi in dadka lala kulmo DP World iyo dadka la wada hadal siiyo xuquuqaha dadkaasi ay ka cabanayeen markaasi la sugo kadib markii dadka xuquuqahoodii la sugay cabashooyinkeedana la dhageystay ee xagga maamulka iyagu aan wax ka qabanay DP World aan kala hadalay arrintaa ay wax ka qabatay arrimahaasi markaasi hoos bay aad iyo aad ay ugu dhaceen markaa waxaana arrintaa runtii aan ka wada shaqaynaynay maareeyaha cusub Saciid Xasan Cabdilaahi oo arrintaa xil dheeraada iska saaray. halkaasi haddii aynu kaga nimaadno aragtida shaqaalaha kala duwan ee dekedda Berbera ka howlgala bal aynu eegno qaybaha bulshada magaalada Berbera siday u aragtaa maamulka dekedda Berbera iyo waxyaabihii ay qabteen sanadadii u dambeeyay. wallahi waxaan arkaa inay si wanaagsan u shaqaynayaan shirkadda DP World shaqaalaha u shaqeeyay dekedda Berbera inay si fiican isu fahmeen waxaan qabaa hawsha inuu qayb libax ka qaatay maareeyaha dekedda Berbera Saciid Xasan Cabdilaahi runtii oo ah haliyey qaran oo ku tusan inuu dalkan iyo dadkiisa wax u qabto isagoo uga yimi wadanka Ingiriiska doonay inuu dalkiisa wax u qabto waxaan aad ugu amaanayaa maareeyaha Saciid inuu si wanaagsan u qabtay dekedda Berbera oo uu ku guuleystay taagii ugu weynaa inuu keeno dekedda Berbera oo nasiibkiisa Ilaahay siiyay waxaan qabaa maareeyaha Saciid inuu yahay maareeyaha runtii wax transparency oo maamul daadajin ku sameeyay dekedda Berbera oo 24 saacadood shaqaysa waxa ugu horeeyay maraakiibtii oo habeenkii la soo xiro taasoo isugu ku guuleystay shaqaalaha gaarka ee faraca badda runtii iyaguna qiimo weyn leh isagoo transparency-giisu yahay nin dhageysi badan leh nin dulqaad badan leh nin jecel dadkiisa iyo dalkiisa inuu wax qabto. waxaan halkan aan ka sheegaynaa maareeyaha dekedda Saciid Xasan Cabdilaahi inuu wax badan ka qabtay dekeddii isagoo ah maareeyihii ku habboonaa meesha iyadoo iminka ay ugu wanaagsan tahay dekeddu xilli wanaagsan iyo shaqo wanaagsan iyo wada shaqayn magaalada ah intaaba uu sameeyey maareeyo waxaa kaloo maareeyuhu sameeyey isdhexgalka magaalada shaqaalaha wada shaqaynta dadka iyo dekeddii oon marnaba xidhnayn 24 saacadoodba shaqaynaysa iyadoo wakhtiga doontaba aan wax dhibi jirin kidinkii aan cidi ku qabsanayn waa maareey waxaan ku leenahay madaxweyne waad ku mahadsantahay maareeyihii ku habboonaa magaalada Berbera ayaad noo keentay dekeddii waxay noqotay meel lagu soo hirto cadawguna ka naxo sidiiquna ku farxo 1968 bay dhammaystirantay dekeddani ilaa 30 hudheel baa u kacay ilaa 10 qoys baa isfuray berigii la dhisayay gaajadii nacamdadka ka soo gaadhay alxamdulillaah waa la helay abaalmarinteedii wax la qiyaasi kara maaha wixii laga macaashay qaybta shana waxay noo dhisay 83kii Mareykanka maanta waxay ka mid tahay dekedaha geeska dekedda u horeysa. bal iminkana aynu eegno mid ka mid ah ganacsatada ama wakiilada maraakiibta waaweyn ee ku soo xidhay dekedda Berbera Saciid Macalish waanu wax ka weydiinay xilligan iyo ka hor sidii ay dekedda Berbera macaamiil ahaan ay xiriirkoodu u ahaa iyo waliba abuuq badan oo dhashay markii shirkadda DP World ay si toos ah ula wareegtay maamulka dekedda Berbera. isfahan waa fara badan baa markii hore yimid DP World iyo ama maraakiibtii ijinadaha ama ganacsatadii taasoo ay u wacnayd wacyigelin fara badan oo la xubin la sameeyo marka hore intaan shaqada bilaabin baa wax badan in la sameeyo la isfahansiiyo marka halka waxa ka baxay roolkii dawladdu ku lahayd ayaa markii hore meesha ka baxay nasiib wanaag maareeyahan cusub ee imika la keenay Saciid
oo runtii la soo kulmay fursaddii la odhan karo waa tii ugu qaalisaneed magacii sharafna ku yeelanaya wuxuu la soo kulmay buuqaasoo markaa taagan waxyaaba badan buu ka qabtay isfahansiintii ganacsatada iyo DP World oo isfahansiiyo iminkana waxaad moodaa in laisla jaan qaaday waxyaaba runtii uu dee magacii sharafta kaga tegi doono waxaa ka mid ah dee taagan cusub ee dekedda la keenay xilligii uu joogay iyo ballaarintan dekedda iminka la ballaarinayo oo dee yaro sharafteeda isagu qayb ku yeelan doono runtii aad baan u wada shaqeynaa hadday dekedda tahay iyo hadday DP World tahay wax dhibina ma jiraan 11 bishii Oktoobar ee 2018 waxaa dekedda magaalada Berbera ka dhacday munaasabad ballaaran oo lagu dhagax dhigayay 400 oo mitir oo lagu kordhin doono dekedda weyn ee Berbera taas oo ay maalgelin doonto shirkadda DP World. Maariyaha guud ee dekedda Berbera ayaa kadib shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu sheegay in qalabkii lagu dhisi lahaa dekedda cusub uu iman doono. aragtiyaha kala duwan ee ay dadku dhiibanayeen ilaa hadda waxaanay xog ka haynin xilliga rasmiga ah ee la bilaabayo dekedda iyo xilliga uu imanayo qalabkaasi. shirkaddii soo rartay qalabkaasi Al-Yazin Shipping Agency ayaa waxa ay sheegtay inuu dhawaan iman doono qalabkii lagu bilaabayay dekedda Berbera. waxaa jira markab imka aan rarayno dekedda Dubai laga soo rarayo shirkad kaloo aan xiriir leenahay ama sister company aan sulanahay oo Safana Shipping laado ayaa soo raraysa anaguna xagan waxaan nahay dejinta wakiilkii waan nahay marka waxaa jira shirkaddan cusub ee qaadatay imika kontraaga dekedda ballaarinteeda ama dhisidda ah qayb ka mid ah qalab ay leeyihiin ayaa saaran markabkan iman doona haddii ilaahay ka dhigo axad soo baxaya 30 bisha ilaa 18 inuu iman doona insha Allah markabkan waxaa Khalid bisha January 10keeda meelaha laga yaabin inuu maraya markabka qalabkaasi haddii ilaahay ka dhigo. tababarka shaqaaluhu waxa uu ahmiyad weyn u leeyahay hawl socodsiinta dekedda Berbera. shaqaale aad u tiro badan ayaa la tababaray dekedda magaalada Berbera kuwaas oo qaatay tababaro caalami ah iyo kuwa lagu tababaray shaqada ay waqtigan gacanta ku hayaan sida ay noo sharaxayaan shaqaalahani oo ka howlgala dekedda Berbera. waxaan ku shaqeynaa systemkan aad arkaysaan idin muuqda waxa weeyaan soo check system waa system aad u fudud oo fududeynaya containerku in aad ogaato whereaboutka uu dekedda ka yaalo shaxdan dhabarkayga ku taala inaad aragtaan in kala weyn samrada ku taala sida uu sawiran yahay oo kale ay dekeddu u qaabaysan tahay balog walba inta container taala nambarada yaala magaceeda waa cadaan qofku hadii jeer ganacsadaha wuxuu ku fiis garoobi jiray ama ku wareeri jiray inuu helo containerkiisa waqtiga hore laakiin imika si yaro simple buu helayaa qofka number balasiinaya loona SYL buu container-kaagu yaala tusaale ahaan oo kale toos buu SYL u tagaya numberkii uu ka helayaa containerkiisa systemkan waa system aad u fudud ganacsataduna aad iyo aad bay soo dhaweysay way ku qanacsan tahay waxay imika dekedda soo dhex oo arkayseen ganacsatadii containeroodii guranaya oo maxaan ku raay bahal garaysanaya taasi waxay fududeynaysaa waxa fududeeyay systemkan oo qof kasta isha u saaray containerkiisa si uu helo waxay qaadan jirtay containerka inuu qofku daydo 2 cisho maalin ama in ka badan laakiin imika within 15 minutes in ka yar baa laga yaabaa qofka containerka inta la geynayo un ay ku xiran tahay loo soo tababaray Zodiac system si ay dadka iyo bulshada shaqaalaha dekedda Berbera u tababaraan oo bixiyaan training dhammaystiran oo khuseeya qaybta terminalka ama container systemka kaasoo aan ilaa hadda ku guulaysanay shaqaalihii inaan dhammaan tababarno hay'ad noqdaan shaqaalaha wada qalabka gawaadhida kaalmarada iyo isiyaajyada. taagu waa halbowlaha guud ee dekedda magaalada Berbera waxay ku dhiiratay markii ugu horeysay inay soo iibsato taag casri ah oo si sahlan u soo xidhaya maraakiibta waaweyn. maariyaha guud ee dekedda magaalada Berbera oo fulinaya awaamiirta madaxweynaha dalkan Jamhuuriyadda Somaliland ayaa keenay horaantii bishii 9aad taagan casriga ah oo waqtigan ka howlgala dekedda Berbera. harbor masterka guud ee dekedda Berbera Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil ayaa inoo sharaxaya taagan iyo ahmiyadda uu leeyahay. waxaan dul taaganahay taagii cusbaa ee cigaal ee dalka yimi taagaas oo loogu talagalay horumarinta dekedda Berbera iyo dekedaha dhan runtii waayihii hore waqtiyadii jiray oo dhan taag nin walba uu ku haminayay laakiin iminka waxa suuro geliyay maareeyaha dekedda Saciid Xasan Cabdilaahi
oo taaggan iyo booyadihii badankooda jiray ee badda jirayba suuro geliyey inay yimaadaan berbera ama la keeno si habeen iyo maalinba dekedda loo soo xidho iminka dekedda berbera laba taag bay leedahay taaggii hore iyo taaggan cusub habeen iyo maalinba waa la soo xidhaa maraakiibta baalotiyo iyo dad khibrad wanaagsan u lehna way joogaan waxaa mahaddeeda iskale maareeyaha iyo dowladda iminka joogta ee muuse biixi madaxda u yahay ayaa mahaddeeda le maxaa yeelay wax haddii aan loo ordin iskama yimaadaan wax waliba waxa ay ku yimaadaan hadba dadka haya maamulka sida ay u arkaan ee ay u suuro geliyaan maryaha guud ee dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi ayaan isagana ugu horeyn wax ka weydiinay bal inoo sharaxo doorka xukuumadda Somaliland ee isagu agtigareynaya ama wakiilka ugu yahay dekedda Berbera ay ku leeyihiin maamul ahaan dekedda weyn ee Berbera maadaama aynu in badan maqlanay labadii sano u dambeysay in shirkadda DP World ay la wareegtay dekedda Berbera dekeduna way qayb badan tahay guud ahaan jamhuuriyadda Somaliland aniga wakiil uga ah ama qaranka jamhuuriyadda Somaliland ba DP World maamulka waxa ka tahay qayb ah dejinta iyo rogista harista iyo rogista qaybta marineska jira marka runtii mas'uuliyadda guud waxa iska leh maareeyaha dekedaha jamhuuriyadda Somaliland waa department hoos yimaada wax kasta oo ay qabanayaan way naga annaga ilaa ay soo mariyaan ma sameeyaan waxa kale oo aan weydiinay maareeyaha guud ee dekedaha Somaliland door intee leeg ayuu ka qaatay buuqii faraha badnaa ee ka taagnaa dekedda Berbera markii shirkadda DP World iyo xukuumadda Somaliland ee heshiiska kala saxeexdeen wallahi doorka ugu culus ayaan ka qaatay runtii inaan isfahansiiyo wada hadalku bilaamo maadaama istiifadoonku ama shaqaalaha rogista iyo dejinta maraakiibtu oo ah hawsha ugu muhiimsan ee laf dhabarta ah badda ka soo dejiya barigana keena waxa weeye iyagana dhib badan baa haysatay insurance ma lahayn dhaawacyo fara badan baa dhici jiray waxa badnaa dhaawacooda aad iyo aad u badnaa maadaama aanay tababar khaas ah iyo safety-ga aanay u training garaysnayn dabeedna waxaan ku qancinay inay ka mid noqdaan shaqaalaha DP World si insurance-kooda iyo caafimaadkooda iyo mushaharkoodaba u kordho runtii way naga aqbaleen alxamdulillah wada hadal fara badan oo guddiga istiifadoonku ay aada uga shaqeeyeen iyo DP World aan ku dhexdhexaadinaynay mar kasta waxa aan ku guuleysanay inay ka mid noqdaan shaqaalaha dekedda shaqaalaha DP World ee operationka maanta mushaharkoodii aada buu u sarreeyaa safety-goodu aada buu u sarreeyaa awal waxaa laga yaabaa shaqaalaha qaarkood inaanay kaba safety boot lahayn dabeedna gaangariba ku dhacdo ay dhib badan soo inaanay lahayn koofiyad inaan loo training garin dadka qaar baa wiishashka fuulayay dabeedna ka dhici jiray dhibtu aad bay u fara badnayd iminka dhaawacyadii soo gaari jireen aad bay u yar yihiin maadaama tababar iyo training fara badan iyo wacyigelin badan ba loo sameeyey runtii meesha waxaa ka dhacay isfahan waa aada u ballaadhan isfahan waagii ayaanu meesha ka saarnay xuquuqdii ay lahaayeen shaqaaluhuna waa waajibaad qaran oo na saaran inaan mar walba ka ful yeelno shaqaalaha xaqa iyo xuquuqa ay leeyihiin shaqaalaha dekedda Berberi waa waajib qaran ahaanna saaran gaar ahaan aniga runtii saaran waanan ku guuleystay wada shaqayn ballaadhan oo sharaf iyo karaamo ku jirtana way keeneen shaqaalaha weynaha dekedda Berbera inkastoo dadka qaar ay lahaayeen problemka shaqaalaha wada laakiin waxaan maanta halkan ka cadeynayaa shaqaaluhu mar walba inay diyaar u haayeen inay shaqadooda wanaajiyaan hagaajistaana alxamdulilah rabbil caalamiin imika iyo mar horena anigu gaar ahaan aad baan u saaraya culayska xaqa iyo xuquuqda ay leedahay shaqaaluhu inay helaan sidoo kalena maareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi waxaan weydiinay muddadii koobneed ee uu shaqadan hayay dekedda Berbera waxyaabihii uu qabsoomay waajibaadka
maareeyaha saaran inuu isbeddel keeno oo uu wax soo kordhiya horta waa muhiim. anigana gaar ahaan waxay iga go-an tahay inaanay iga noqonin inaan shaqo meesha ka helo, laakiin qarankan aan wax ku soo kordhiyo, maadaama dekeda berbere tahay lafdhabarteennii ama dhuunta somalilan wax usoo maraan. waxa lagama maarmaana taaggu wuxuu ka mid yahay mashiinada lacagta qaranka u sameeya, waa albaabka u horeeya ee laga soo galo jamhuuriyadda somalilan dekeda berbere. haddii taag la waayo shaqa ma soconayso. alxamdulilah rabbilcaalamiin 42 sannadood buu taaggaasi shaqaynayay hore ee la idhaha saaxil. waxa aan markaa arkay inaan sidan lagu sii jiri karin, in baahida weyn ee loo qabo qaranka haddii taaggaasi uu istaago ay jamhuuriyadda somalilan aanay hore u soconayn. culays badan iyo dadaal badan baan sameeyey. runtii taagga alxamdulilah rabbilcaalamiin waan ku guulaystay. lacagaha laga qaado lacagta taagga lagu soo iibiyo waxaa iska le qaranka jamhuuriyadda somalilan. waxaan halkan mahadnaq dheer uga jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi oo runtii higsiga iyo horumarka aan ku tallaabsanayno arrin kastoon ula tagnana nagala qayb qaata. taaggaasi waxa ka mid yahay asadka jamhuuriyadda somalilan leedahay asadada ugu qaalisan. 5 milyan iyo dheeraad ayuu istaahilaa. asadkii ay lacagta somalilan lahaydna waa lagu soo iibiyey. maaha waxay DBWOL bixisay iyo waxay cid kale bixisay, jamhuuriyadda somalilan ba asadkaada. si kastaba ha usoo gasho oo dekeda ha kusoo gasho, laakiin waxaan maanta caddaynaya asadkaa inay jamhuuriyadda somalilan iska leedahay. waxaa kaloo noo soo socda oo taagga noo dheer pilot boat, iyadana bisha 3aad 2019 noo imanaya insha allah. sawirkiisana aad halkan ku arki doontaan oo imanaya bisha 3aad. pilot boatku waxa weeye waa doonta ay raacaan bayloodada maraakiibta soo xidhaya. ingiriisku wuxuu idhaahdaa first impression is the last impression, yacni aragtida kuugu horeysunbay dadku kugu qiimeeya. iminka bayloodadeeda waxay raacaan huuli ama laash ay kaga hortagaan. marka ay raacayaanna waa ambasadorkii jamhuuriyadda somalilan, waa halka qura ee laga soo rasiif garaynayo. hugaaguna wuu kula shirtaga. damiirkayga wuxuu isiin waaya inaan sii eegto ina ay bayloodadu sii raacaan laash. waxa aan iminka isaga oo broya oo cusub bisha 3aad noo imanaya pilot boat maca isgaarsiintiisii wata. hadda waxaa gacanta lagu hayaa in lagu buufiyo calanka jamhuuriyadda somalilan. insha allahu waxaanu rajaynayaa sanadkan cusub dhexdiisa in in pilot boat ay bayloodada dekedu raacaan oo aada iyo aada systemkiisa ugu dhan yahay inay kusoo xidhaan insha allahu maraakiibta. waxaan jecelahay runtii qofka marka meel la keeno de inuu isbeddel sameeya waa waajib, waana waxyaabaha laga rabo, waana sunnaha dowladnimo in dee dadka laysku bedbedelo in qofka meel kasta qaado. laakiin runtii waxaa ka turjumaya waxaa la yidhi waxaad isu haysta maayo oo waxay dadku ku haystaan. annagu isma haysana inaan wax qabanay, waa waajibkaygii baan gudanaynaa. waxaan rajaynaynaa insha allah inaan halkaa kasii qaado. dabcan maariya siciid waxaa kaloo aan weydiinay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee Ethiopia ee dekeda berbera xilligan halka uu marayo. Rashayna waad ogtahay in heshiis 3 geesood imika la wada galay Ethiopia iyo DBWOL iyo Somaliland. kaasna waa gabagabo oo waxay ku xidhan tahay dekedan cusub ee 400 mitir ee container terminalka. waxaan qabaa marka aynu servicekeena hagaajisano in macaamiishu iska imanayso. weelkii loogu shaqayn lahaa ummadda waynu la nimaadna marka hore. mar labaadka waxaa imanaya in macaamilkii uu yimaado marka diyaariso wax kasta laga heli karo. alxamdulilah rabbilcaalamiin. hadda waxaan rajaynaynaa inaan kusoo kordhino oil bunker, in maraakiibta maraysa baabka markab siiya shidaalka isaguna oo halkaa maraakiibta kusoo hirato. waxaan rajaynayaa insha allahu sanadkan soo socda gudihiisa inaanu samayno dry dock, meel maraakiibta lagu sameeyo oo iminka proposalkiisii aanu ku jirno, dhamaystirkiisina uu gabagaba yahay. waa qorshayaasha noo qorshaysan 2019 inaanu dry dock sameyno oo maraakiibta lagu hagaajiyo
shaqo abuur fara badanna laga helo haddaba goorma ayuu imanayaa qalabka lagu dhisayo dekada cusub arrinkaasi meel aad iyo aad u wanaagsan ayuu marayaa had iyo jeer marka hawlu jirto waxaa imanayaa dib u dhacyada iska jawalka kani waa mashruucii ugu weynaa inoogu horreeyey insha allah mana noqonayo kii inoogu dambeeyey waxaa haddaan warbixin gaara ka bixiyo waa run aniga lafteedu anigii wasiirka maaliyaddu safar baanu ku bixinay dalka imaaraadka si aanu arrimaha noocana usoo afjarno culayska u weynna anugu runtiina saaran yahay maadaama aanu mas-uul uga nahay uu soo raran yahay lana soo raray caddaynteedana waxaan weliba jecelahay in ganacsatada somaliland shirkadda soo rartay waxaa la idhaha yaasiin shibin aad wax ka weydiin doontaan iyada laftooda agabku wuu imanayaa shaqaalihii hay-adda wax dhisayey waxaa ka joogaa ilaa 8 qof baa ka jooga imika sameynaya sarfaygii siteki ay degi lahaayeen shirkaddu guryahooda looga sameyn lahaa plastiga shaqadu way bilaamatay waxaanan rajaynaynaa shaqadu dekeda laga qabanaya 2 nooc bay noqonaysaa dekedan cusub la dhisay 3 nooc labaa horeeya mid waxa weeye marine service ko badda laga shaqeynaya lagu taagaya beebabkii waaweynaa ee kiiga qabanayay qaybna waa qaybta bariga January dhexdeeda ayaa marine service-kii uu bilaamaya shaqaalihiina waa la soo expert-kana way imanayaan oo waa on the way January 15 insha Allah waa heshiiskii u dambeeyay soo kala dhex galnay insha Allah ugu dambeyntii maarayaha guud ee dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdilaahi waxaanu weydiinay bal inuu si kooban u soo ururiyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay muddada sanadka ah u qabtay dekeda Berbera waxaa ka kooban taaga cusub ee 3,000 ee horsepower ee jiidi karaya maraakiibta ugu waaweyn waxaa ku xiga dhismahan weyn ee dekedu ay leedahay ee maanta aynu dhex joogno alxamdulillaah rabbil caalamiin shaqaalaha iyaga maanta goobo wanaagsan oo ay ku shaqeeyaan bay leeyihiin waana image-ka maadaama dekeda Berbera ay tahay gateway-ga laga soo gelayo dalka Jamhuuriyadda Somaliland inuu hogaagu qurux badnaada waa laga maarmaan waa hooyadii lacagta inoo sameeysay waa hooyadii Somaliland inay qurux badnaataa waa muhiim ay qalabka shaqaalahana la tababara waxa kaloon markii hore jeclaa inaan ku daro waxaan rajaynaynaa imika 5 xubnood ama baylood kamida ama qaybta technicalka inaan scholarship u dirno waxa kaliya aniga igu muhiimsan waxa weeye in dadka aqoontooda la dhiso marka aqoontooda dhisto ayay wax qaban karaan waxa ilmaha u roon baa umushana u roon inaynu Somaliland wada ilaashano waayo maamuladu way isbedelaan laakiin Somaliland tagmayso waxaana muhiim ah inaan caruurteena u maaldelino sida wadamada geeska imika halkan DBWL waxa gashay heshiis 30 sanadood ilaah baa garan cid nool ama noolaan doonta laakiin waxa ay u galaysaa in ubadkeeda iyo kuwa dhalan doona ay nolol wanaagsan ku noolaadaan waxaan jecelahay inaynu iska dayno kelida qoyska oo aan u fakarno Somaliland oo dhan war aayaheena iyo higsiga aynu higsanayno ay ku ekaanaya haddaynaan ka fakerin meesha loo socda iyo 10 sano soo socda xaq sidaan u ekaanayno meel gaari mayno waxaan idinkaga tegayaa guul iyo gobonimo iyo inoo gacmaha iska waxaan joognaa saxiixii qandaraaskii lagu dhisayay shirkadda DBWL balaarinteedii shalayna waxaa la soo dhigay dhagaxdhigii magaalada Berbera waa maalin taariikha oo ka tirsan maalmaha ku qoran baaldahaba ee horumarka Somaliland geeska Afrika iyo isku xidhka khariijka iyo geeska Afrika walaalayaal dekada la balaarinayo horumarka dhaqaalaha geeska Afrika ka jira adduunka oo maanta dhaqaalaha ku tartamaya ciidanka aynu u haysano iyo aqliga arintaa wax ka qabtay ee muujiyay kartidooda ee Ilaahay Soomaaliyeed ku manaystay ganacsada koowa waxaan soo dhaweynaa ganacsada la shaqayntooda xaaladaha ganacsi u gobol xaalkiisa dawladdu waxay qabataa waa facilitation waa fududaydo dhaqaalaha dalka waxa dhisaya waa ganacsatada Berbera maanta hawsha laga qabtay ee DBWL aan iska kaashanay iyo dawladda Carbeed ee midowday Imaaraadka
waxay noqonaysaa halka aynu ka duulayno barbelow aynu ka bilaabayno inaynu u noqonno albaabka laga gelaya afrikada aan dekedaha lahayn ee faraha badan boqolaal malyan oo afrika inaynu u shaqaynaa baynu doonayna shirkadda berbera port waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo wadaagay oo isu tagay waa shirkad ganacsi shirkadda ganacsi waxay isugu yimid maalgashiga United Arab Emirates oo DB World ah oo ata wax maal gelinaysa iyo dalkii lahaa berbera port ee ilaahay ku abuuray oo dalka iyo facility iyo Ethiopia oo ah customerkii ama ganacsadihii loo adeegayay ee badda u baahnaa saddexdaa dal baa isugu tagay waxaanay sameeyay shirkad ganacsi oo ay wada leeyihiin si ay u wada shaqaystaan oo ay si nabad ah dhammaantoodba horumar u sameeyaan dalalkooda waana ilaahay mahadi waan uga mahadnaqaynaa dowladda imaaraadka carabta